wixii details farsamo ah ee reportkan midterm review-ga ah wasiir caynte oo wali cilmigiisii dalka ugu adeegaya iyo wasaaradda iyo ragga halkan jooga ayaa aad arrimaha uga soo shaqeeyay waxaan jeclaan lahaa markaa bal in arrimo guud aan ka hadlo horta intaynaan gelin afafka Faransiga iyo caalamku soo wax u qorsheeyo bal aynu dhaqankeena ku noqono arrimaha qorsheynta muxuu dhaqankeena ka oranayay reer guura ama reer miyi ama xoolo dhaqato ama beeraley baynu ahaan jirnay horta ninka beeraleydii sanadka dambe seedka uu wax ku beerayo meel buu sii dhigan jiray kaydkana bakaar buu u samaysan jiray qolooyinka xoolo dhaqatada ihna sanadka xillidiisa kala duwan xoolaha hadba meel bay u foofin jireen nimanka ajaanibtu hadday ogaadeen oo waxay yiraahdeen waa in deegaanka la ilaaliyo laakiin inaga dadkeennii hore xidigaha iyo waxbay eegi jireen iyo amuuraha oo xoolaha marka la foofinayo marka guban la geynayo marka hawd la geynayo markay sagarada iska daaqayaan intuba way u calaamadsaneen gabay uu xaaji aadan afqallo mariyo baan u maleynayaa baa wuxuu ka hadlaa aboorka malaha midhiisa waxa ka mid ahaa aboorkuba intuu alleyl kaco ayuu waxaas ay aqalla sameeya marka uu awoodiisa isu ururiyo aqalku dhisa la ashqaraara bayri ama adiya la ashqaraara wa aboorka hees kale oo malaha hiba qaadi jirtee iyana waxay tiraahdaa bahalka maroodiga la yiraahdo aragteena xoog weyn ee gacankiisa kaliya qof ku dili kara isagoo saa isaga socda baa qof ugaadsanaya imanaya xabad buu ku dilayaa folasho kala baxaya waa ka tagaya aboorkuna daarta aad aragtay buu samaystaa oo ku dhunta marka haddii Soomaalidu sibay u qabweyn tahay hadday oranayaan sidii maroodigan isaga soconaynaa halana ugaadsado iyo haddii ay markaysaayay samaysanayaan wax ka dahaadha maqaadiiraha adduunka horta waa inaynu dhaqankeennii dib ugu noqono climate change baa laga hadlaa mitigation baa laga hadlaa adaptation baa laga hadlaa reer miyigeennii hore way la noolaan jireen duruufahooda oo meelaha qaar baan la ogolayn in degsiima laga dhigo hadda ayaa qolooyinkii jacaadaha tagay markii dambe ay yiraahdeen reserves baa la yiraahdaa isa u ogaada taas inta dhaqanka markaan kaga baxo NDB dani waxa la yiri waa tii sagaalaad hadda la soo qiimeeyay waa NDB dii sagaalaad بمعنى هو حوي السدود هراء كوري صوما بل حلية دي القرية إنه يردوا الاستعجال ما اللي حدمية دي بعلقة صوب بلا بوزير NDB دي هو الرئيس قرم على القرية ما اللي حدن كيبا أرت اللي حدمية دي هدي مثل القرية رجع يدمر كمركات شوقي نمن قميص يسكعيي أو درين قارة له أو هالبيت قارة له oo yuhuuntooda urursan tahay oo wixigsanaya bay ahaayeen pillarka u horeeya NDB-dan ee la yiraahdo inclusive politics xasilinta siyaasadda dawladeynta dimuqraadiyadda xisbiyada dawlad wanaagga iyagoo horta judhiba waa ku guuleysteen faktiba pillarka isaga inagu hadda 20 sano la ku faakacayna cabaar markay waxoodii wadwadeen oo waxna lagu caanamaalay waxna ay ka dhinaayeen waa tii kacaankii u dhashay waxaan u maleynayaa marka labaad ee qorshe qaran oo weyn doorkan la dejinayaana xilligii kacaanku ahaa jahay qabadsiiyeen iyaguna dalkii dawlad xoog leh awood leh iyadu wax walba soo saarta taraqa caanaha warshadii kabka warshada caanaha mareerley tamaandho maxay ahaaytay waxa soo dhan malaha bayl iyo xoogay Coca-Cola ka baxsanay qofka dhalinyarada ee ka soo baxa iskuulka wuxuu u shaqeynayay dawladda aad baa loogu caanamaalay markii dambena iyadiiba isdaaqday qorshayaashaasi aad baa loogu caanamaalay markii dambena iyagi qorshihiiba isdaaqayba marka gabayba wuxuu yiraahdaa war doomaarta hawd iyo hadii dooga ku cashiday war bilow gamboorki iyo ciinkuba dawo u yahay
xilliyada markii 800 la soo gaaray af Soomaaliga baynu qoranay jaamacada la aasaasay qof walba iskuul baa la geeyay significant improvements baa lagu sameeyay dadka Soomaaliyeed noloshoodii abaara dhacay boqolaal kun baa la soo dallacay oo la keenay nimcooyinkan inta laga keenay gobolada dhexe iyo waqooyiga haddana ay DBA-nu abuuranaa hor leh waxba yaanan sheekadeeda ku dheeraynay sagaashameeyadii markii la soo galay 84 meelaha baa waxa la arkay in waxaanaynu dugsanayna ay qolfoof tahay inkastoo taarabunka aad loo mareeyay diyaaraduhuna ay kacayeen ama dalka had duqeeyaan ama dibadda ha u dhoofaane diyaaraduhu marka way kacayeen Somali Airlines baa kacaysay militariguna deegaamada kala aadayay dalkii noocaas ahaa shilinkiisina waxba uu goyn waayay sixir barar baa dhacay dhaqaalihiisii baa isnuugay World Bank iyo culimada timi waxa la yiri downsizing hal la sameeyo shaqaalaha hal la dhimo hal la privatize gareeyo naguma baa ismina wati qorigu ka soo hormaray qorigii iyo maleeshiyaadkii jabhadihii baa ka soo hormaray interventionkii marka dawadii la qoray la islamaba siminba qorshihii late 80s-kii la qorayayna mid malaha free market iyo capitalism inoo rarayo ahaa oo laga soo guurayay state gabigeedaba bahasha haysta marka hoosooba wuxuu ka dhawaajiyay 30 sano way idin la dheertay laakiin 30 sano bilaa qorsho aad u wanaagsan oo inaga soo qaaday nabiga 30 sano oo bilaa qorsho haddii bilaa qorsho la isaga noolaanayo haddii la tasgareynayo the principles of free market economics oo la leeyahay dawladda ka saara horta meesha kaliya la oran karo bal midhaheeda aynu ka eegno waa Soomaaliya dawlad la'aan maxay dhashay waxay dhashay in sektarada qaarna ay bulaalaan telecommunicationka waxbarashado kale inta dhalinyaro halkan joogta dalka wax ku barteen hay'ado mashriqiga iyo maghribka kala yimi ay cabar wadaan wadooyin aanay jirin kanaladii isxidhaan webigii Shabeelle ee 1.6 million dadii ay u shaqo tagi jireen ee nolol kala soo bixi jireen la banado duul hor leh oo calal madowna ay yimaadaan oo ay yiraahdaan qofku beerta ma falan karo ilaa uu $50 na siiyo waa qof aan 50 ba weligii arag waa wixii ay dhashay qorshe la'aantu ilaa qorshe xataa siyaasadii ba ku jirtay duulka horta leh ee hadda aynu duulaanka ku nahay ee ceelbuur iyo geel hareer aynu ka soo kicinayno ayaamahan soo socda ee kumanaanka kuna ciidanka la horgeeyay ayay dhashay qorshe la'aantu waaye waxa timi NDBD u dambeysay ee bariyaha dambe la bilaabay oo sircaynta in la jooga gabaygeedu hal beeg bay lahayd oo asaas u ahaa poverty reduction strategy hadda kobac iyo dhaqaale iyo adduun la tartamo ma waa bal faqriga soo looga samata bixiya baa leeyahay hal loo dejiyo qorshe faqriga ka samata bixiya faqrigaas muxuu yahay dalka Mareykanka oo qura waa sanadkii dhamaaday billion US dollar ka badan ku bixiyay inuu samata bixiyo dadka Soomaaliyeed macluusha u dhimanay maxoolaynu u dhiibanay ilaahay baa dubay nagu dhuftay waa dal kaliya boqolkiiba 80 daayirta Soomaaliyeed ma shaqayso waxbarashada bahada caafimaadka hawlwadeennada caafimaad ee dalka Soomaaliya uu baahan yahay waa 100,000 less than 10,000 baynu haysanaa waxaan arkay niman Soomaaliyeed oo xalay baan barsiri dhageysay aqoon-yahanadii iyo cream of the crops ka Soomaaliyeed oo carra Mareykan ku shiraya shalay oo yiri aayaha Soomaaliya ka shirayna bal nimankaasna ma aqaan xisaabtan inay farfadhiisiyeen haddii aanay gaadhin haddaynu ka daba geynina oo de aqoontii iyo bay hayaan way aragnimadii moogta 100,000 oo hawlwadeen caafimaad bay Soomaaliya u baahan tahay wax 10,000 ka yar baa shaqeeya 100,000 ka badan oo macallin bay u baahan tahay inta ka yar bay haysataa aan ka soo gudbo qorshahan marka 8 iyo 9
وحل لها ورنيو إن من كان مرول باللوسو جرمانيو بالجرمة تكون كبحان ولله لكن وين كتشرنا ولبا إلهي هي نجسة متبحية وحل السعدالين إياه بلها صوص صعدة النيمو ميا اللي يراهدا ما كره أفكار فرنسي يا النينو أيها صوص صعدة it is going to be the worst in 100 years dadkii shalay aanu biyo la'aanta ugu gurmanaynay biyahaas laga baqaya inay laayaan ta ugu daran ee 100 sano dhacday baa soo socota ummaduhu way sii saadalayaan wayna akhriyaan horta qorshahan la sheegaya waxa la rabaa inuu su'aalaha waaweyn ka jawaabo aan soo ururiyo dawladda Soomaaliyeed budgetkeedu horta expenditure-keedu waxaan u maleynayaa waa 400 iyo 50 oo milyan 450 milyan xaafad yar oo Switzerland ka mid ah ayaa barafka iskaga qaada adduun weynuhu wuxuu nasiiyana waxa ka badan waxay muwaadiniinta Soomaaliyeed soo diraan horta ee qurbaha ku nool horta waa Korean yaryarkii Canadian iyo Mareykan iyo Italian bay noqdeen aabayaashood iyo hooyooyinkood hadday soo diri jireen oo ay iska jari jireen ciyalka marmarba ciyalka cashadooda soo diri jireen dad bay noqdeen mortgage iyo guryo iyo wax galay oo iskuulla waaweyn galay oo ayaydoodna ilaawayba marka xabaal iyo ninkeed loo kala tag baan u maleynayaa waa loo kala tagay xabaal iyo ninkeed aan marka bal qorshaha qarankan dambe laynaga sugayo kan midterm review baynu ku sameeynaa wax badan baynu ka baranay haddama uu ahaa guulaha maan highlight garayn laakiin de guulaha mar walba waxa ka badan challenge-ka ina barbar yaala Soomaaliya waday haysataa wadadaasi waa wado laba meelood bay nagu furi kartaa waxay nagu furi kartaa intaynu challenge-ka yarayno inaynu opportunities-ka iyo fursadaha maximize garayno oo horumar u horseedno dalkeena iyo in halkii ay ka timi aynu ku celino sidii ninkii gabiye uu yiri daawaday hashayday wuxuu yiri daacade waxa hashayday daawo iyo nasiib daran wuxuu yiri dambasbaan ka leexshaayo cagahay dab gelisa dhulka meesha dulin kale ka duwan iraahdayo waxa loo dareershaa halka ugu dugaag badan bi isagoo isla dulinka iyo bahlada yar qaniinaya rag maxay gosha iyo ganda baaba liba xafka looga gelinaya qorshahan qaranku markaa waa inuu ka turjumo duruufaha Soomaaliyeed iyo aayahooda sida uga shaqeyn lahaayeen number 1 horta waxa uu ah oo la soo celinaya sida ay culimaduba sheegtay halkan fadhida in la fadhiisiyo state-kan siyaasadiisa iyo capacity-giisa shaqaalaha rayidka Soomaaliyeed waa 6000 iyo in yaro ku meel gaara ma intaas Soomaali u adeegi kartaa 200,000 baa loo baahan doonaa laakiin si 200,000 loo helo waa inaad horta 200 milyan gaarsiiso budgetkaaga bilyan ama 50 bilyan ama 30 bilyan waa inaad budgetkaaga gaarsiiso aan soo ururiyo Soomaaliya beesha caalamku waxay in tartaa waxay u kala baxaan waxyaabahan soo socda 80% waa quudin iyo jel miya la yiraahdaa iyo nafku celin oo laga soo daalay Ukraine baba gurmad u baahan oo sida lagu xasuustaa way adkaanaysaa bariyahan taas waa taa tan kale waa xoogay marka la isku celceliyo aynu ugu yeedhi karno human capital development kobcinta tayada ama khayraadka dadeed ee dalkan waa kharashaadka waxbarashada la geliyo caafimaadka la geliyo waxaan social safety net la ilaahay la geliyo iyo in yaro kale oo infrastructure oo weli aan ballaaran waxaan idinku bushaareynayaa haddaynu hanaankeenna dawliga ah hagaajinno waxa layna taraa way sii kordhayaan laakiin haddaynu weelkii u tolan weyno maxaad lula taabay noqonaysaa waxaan ku soo gunaanadayaa haddii berigii hore iyadoo dalka 70% ay shabaab haysato aanu ummadda hor iman jirno oran jirnay waanu adeegaynaa qof walba ilmaha yar 10 jirka wuxuu oranayaa warnimo ku yaa badana dalkiiba shabaab baa haysatay dadkana u adeegayaan waayo
maanta qorshaha la hayaa wuxuu ku bilaabmayaa in la xoreeyo dalka oo dadka la xoreeyo oo amniga la sugo si adeeg u gaadho guushaasina waa soo dhowda madaxweyne xasan sheekh maxamuud caawa dhuusamareeb buu fadhiyaa habeenkii imsaad oo uu oday iyo dhalinyaro iyo ciroole iyo caruurba la shiray oo guluf codaadeed lagu qaadaya nimankaad ogeydeen xukuumaddii bangigii dhexe wasaaraddii maaliyadda guud ahaan dayn cafintii way soo idlaanaysaa ruushkaanu tagnaniyo wasiirka maaliyaddu 7 milyan oo 61 ay bangigii Soomaaliya ku rideen baaba noogu darnaydba iyo 680 milyan oo kale waa 1 bilyan baanu ayarneer naga dhaaf 18 shir ayaa la galay inta ka hor dalalkii kale way naga dhaafeen Paris Clubka in yar baa hadhay hadalkeedu ku dheerayn maaye deyn cafin markaynu ka baxno shabaabna iska saarno ayay shaqo inoo taala shaqadaasina qorshaha qaranka ka bilaabmaysa marka ay robotka weyn soo baxo baynu doodaha iyo farsamada galeynaa waxaan rabaa inaan bogaadiyo oo run ahaantii aad u bogaadiyo wasiirka qorsheynta iyo bahda arrimaha qorsheynta ka shaqeysa ilaa heer federaal iyo howlwadeennada tacab fara badan baa galay bilaal la qoreeyay bilaal la daraasaynayay saaxiibadeena beesha caalamka ee arrimaha dawladnimada naga caawiyana aad baanu uga mahad celinaynaa laakiin waxa qofku caawimaad ilaahay buu ka sugayaa marka labaadna isaga iska sugaya inta kale aadama uu wuxuu qabtaa waa kabid dad islaameynu nahayo ilaahayna way noo gurmanaya laakiin shaqadu Soomaali bay u taallaa ama qurbaha joogan ama halkana joogan waxaynu isu geenaynaa fahamkeena iyo garashadeena iyo awoodeena dadkeena iyo dalkeena waynu samata bixinaynaa aad iyo aad baad u mahadsantihiin guriga gobonimada darajeenana